culamaa udiinka maamulka magaalada Dhagaxbuur ayaa lagu wareejiyay dhul loogu talagalay in masaajid lagu cibaadeysto laga dhiso. munaasabad dhul wareejin ah ayaa la guddoonsiiyay qaar ka mid ah culamaa udiinka maamulka magaalada Dhagaxbuur waxaana ka hadlay goobtaasi Sheekh Bashiir Maxamuud Xasan Bukhari, Sheekh Maxamed Faalug iyo sidoo kale Sheekh Axmed Nuur Sugule oo ka mid ah culamaa udiinka maamulka magaalada Dhagaxbuur iyagoo tilmaamay in cidii dar Ilaahay u dhista masaajid uu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala isaguna guri uga dhisi doono jannada. waxaan fadhinaa buqca bannaan oo sees ku wareegsan yahay oo ku taala maamulka magaalada Dhagaxbuur xaafad kamid ah gaar ahaan xaafadda Dulcad la yiraahdo. masaajidkan aan harfda fadhino oo aan rabno muslimiinta inaan baaq ugu diro meeshan sidaan sheegay aan baaq ugu dirayno muslimiinta caalamka gaar ahaan muslimiinta reer Dhagaxbuur waa buqca masaajid loogu talagalay. waa masaajid ay waqfeen gabdhaha walaalaha ilmo odawaa gaar ahaan gabadha la yiraahdo Faadimo odawaa Allah u naxariisto waxayna wakiil uga dhigtay walaasheed Dahabo odawaa. buqcadan aan fadhinaa waa buqcada waqafka sees baa ku wareegsan waa dhul aad u qurux badan. seeska waxa sameeyay oo masaajidka ku wareejiyay gabdhihii ay dhashay Faadimo odawaa iyo walaasheed. gabdhihii markay intaas sameeyeen waxay u soo bandhigeen oo ku wareejiyeen oo ay masaajidkii faraha ka geliyeen muslimiinta guud ahaan gaar ahaan Xaaji Axmed Nuur Sugule oo daris la ah ehel gabdhaha u ah ayaa masaajidkii lagu soo wareejiyay inuu isagu dhiso inuu muslimiinta ka dhiso inuu cid kasta gaarsiiyo. iyaga dhageysta muuqaalka iyaga daawada buqcadan quruxda badan daawada inuu shilinkiisa iyo wixii heli kare sadaqa masaajidkan ku soo darsado. aan rabnaa masaajidkan sida ugu dhaqsaha badan inuu u dhismo. waa masaajid si aad u baahan loogu baahan yahay si aad u badan loogu baahan yahay saadaradeed muslimiinta gaar ahaan kuwa reer Dhagaxbuur ganacsatada Dhagaxbuur ee jigjiga degan kuwa caalamka degan muslimiintu meelay joogaan barag iyo dumar maalkiina soo gashadaan leeyahay. masaajidkan waa dhisan yahay seeskiisi baa diyaarsan dhul aad u ballaaran buu leeyahay madaarisi ay ka dhismi karto musqulihi ka dhismi karaan oo barkadihi ka dhismi karaan waa dhul aad iyo aad u qurux badan. saadaradeed baaq ayaga aan diraynaa waxa weeye sidii masaajidii horeba aan ku dhisnay maxaa yeelay masaajida badan oo aan baaqa muslimiinta u diray oo la soo dhiso la soo dhameystiro jumcada iyo jamaacadkaba lagu tukada ayaa jira. masaajidku khayrka uu leeyahay in laga qayb qaato wax hadda la isaga warramay ma aha qof kasto muslimi uu og yahay qiimaha iyo ajirka iyo fadliga ku jira. marka waxaan walaalaha muslimiinta ka codsanaynaa masaajidkaas say gabdhahaasi waalidkood ugu waqfeen si sharci waafaqsan ay ugu waqfeen iyaguna hantidooda iyo dhaqaalahooda iyo maskaxdooda ay u waqfaan oo ay ku soo bixiyaan dhaqaalahooda masaajidkan ay soo dhisaan bidnillaahi alkariim. waa sadaqa jaariya oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa wuxuu ku yiri idaa maata ibnu aadam in qadaa camalu ilaa min thalaatin sadaqatin jaariyatin aw cilmin yuntafac aw waladin saalih yudcaa lahu. ibnu aadamku markuu dhintay camalkiisu wuu go'ayaa saddex qof ka taga mooyaane saddexdiibana masaajidkan kulminaya. waa sadaqa jaariyo cilmi yuntafac ummadda intifaacsana waa lagu baranayaa masaajidkii. walad saalixna uu ka soo bixiyo walad aan tarbiya islaamiya qabin oon tarbiya islaamiya baranina walad saalixa ma noqdo. marka masaajidku saddexdii rasuulku dardaarmay calayhi salaatu wasalaam wuu kulminayaa. khayrka ka soo qayb qaata oo maalkiina iyo taladiina iyo maskaxdiina kaga soo qayb qaata bidnillaahi alkariim. masaajid badan oo hadda intii aan joogay dhismay oo dadka islaamka ah dhisay awood anigu aan leeyahay maal aan leeyahay kuma dhisin islaamka dhisay. sida daraadeed baa la yiri wakiilnimo kelina kuma inta meesha fadhida masaajidka wakiil bay ka wada yihiin muslimka oo dhan buu masaajidkaasi maanta marti u yahay. haddan aanu fadhino alxamdulilaahi rabbil caalamiin